arrin kale ku sheega waxa jira wax la yiraahdo wax ku cusub qurbaha gudaha waa jiri jiray laakiin aan ma ahayn oo waxay iska ahayd khudbad sir la dhihi jiray halkan waxa la yiraahdaa daytime marriage guurka maalintii waa daytime marriage waxa laga wadaa 8 in the morning till 6 p.m. ayaan isarki karnaa oo nisqabayna habeenkaas ma qabayna barkii xaaskaygu waa kulul yahay ma ogola inay aragto naa kale ayuu leeyahay 8 ilaa 6 markii 3 bilood la isqabo ayay maalin waxay ku leedahay niyo iftiinkan waa idhabe maalintii hal habeenaan rabaa 7 habeen war waa walay arrintaas ma sameey karo balaya taagan ma inay dila rabtaa ma dhimala ana ayada weydiisanaya ya oo ogtay kalena ma oga ayada ana xaaskaaga weydiisanaya 2 habeen jiri haye ninkii de cirkow galay waa cabsaday telefoon bay dirtay aba ii waran seeta nabad hebla la yira hebla ku qaba anigana hebla ay qaba laakiin problemka haysta wuxuu yahay maalintii uu jecel yahay inuu yimaado ee habeenkii ima iman karo adoo ka cabsanaya marka walaalay ma 7 habeen 4 qaadatid 3 naysiis tii way naxaysaa waa kala badanay way yaabaysaa sidee ku dhici kartaa in qofku weydiisto na 3 habeen ku siiyay ayay tiri waa ka ogolaato waa la kala tegay telefoonkii saaxiibka asagoo foorinaya ayuu guriga soo furay markii uu soo fadhiisto casho cunay asagoo dilibaaxa oo sida laguma oga ayay waxay leedahay wareede maxaa wadaad isaga dhigtaa adiga shanta waqti tukanayo dadka waaninayay ma dadka yaani xaqa u soortay si fiican walaalay maxaa dhacay waay xaaskii kala soo wacday oo maalinta kula heshiisay oo 3 aadan arki karin markii 3 habeen u ogolaaday 3 habeenood aadaysid ii sheeg wuu naxay wuu dhididay ayadana xaaladeedu og yahay aad bay u kulusha gaariga alaab ku soo ilaawo sidii buu ku maqan yahay waa missing in action Englishka يعني dagaal nin inta tagay dib dambaan loo arkin yani taas waa maxay waa guurka uu qarinayay oo daytime oo ku sheegay ayaduna ay tiri aniga maalin kuma rabo laakiin haddana ay habeen u baahatay aakhirka sheekadii waa imaanay